السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي رجتلدي تلادة أصحابت دمانتين ملك استود الدونك جوكتين ومركلة يتلدي تلادة أسبوعا محان دوني إنا وحير كي راهضو هالي لابو بيدان دادكو موقتها هالي لابو وحان دوني إنا وحير كي راهضو إن أرين آدنا وقبضان وقبضان كين أي سميان oo culture kan shame culture kala yiraahdo oo shaming ama in wax la qof lagu ceebeeyo wax inta qof lagu arko lagu ceebeeyo arinta sida mahmaha baa jirta oo wixii asarkii lagu arko baa ashii lagu caaya mararka qaar kood waxa yiraahdaa saa igu cayday maanta berina waa igu cayday saa dambe qof kale to cusub oo ku cayda helaysa because adigu shaqadaadaba waa inta soo ma ogid dadka marka wax ceebeeya oo jecel inay wax ceebeeyaan shaqo kale u tahay ayaga laftigooda culture ay ka dhigteen maanta markay adiga kugu mashquulaan bari qof kale ku mashquulsan aan kala barano maxaa ceeb maxaanan ceeb ahayn maxaa qadar oo kugu dhacday maxaa dhib kugu dhacday oo qof kasta ku dhici karto maxaa imtixaan adiga kugu dhici kara qof kastana ku dhici kara maxaa dhib qof soo gaartay oo qof kastana soo gaari karta iyo maxaa ceeb oo in laga fogaado ay tahay horta aan kala barano wallahi mararka qaar kood waxay raadaan reer dhan oo meel degan ayaa arrimo ayada qoseeya waxa laga dhigayaa ceeb gabar la kufsaday laga yaabaa in la yiraahdo waa ceeb noo soo hoyatay war gabadhu ayadu ma raadsanin war ayada dhibku ku dhacay war reerka igu dhib ku dhacay maaha inaad qarisiin mana aha in la isku ceebeeyo marka walaalayaalow waxaan ceebta la yiraahdo bal macnaha ay leedahay iyo waxay tahay u barta horta oo ha isku qasinina qadar iyo dhib kugu dhacay iyo ceeb ha isku qasinina midda kale bino aadanka intaad ku mashquul lahaydeen naftiina ku mashquula maanta markay adiga ay kugu mashquulaan oo ku dhigaan bari qof kale ku mashquulaan qofkaas shaqo ka dhigtay culture asaga ka dhigtay marka walaalayaal waxaad ogaatiin adiga qoyskaaga cid kale furaha uma hayso adaa u haya caruurtaada adaa furaha u haya intay yar yihiin markay weynaadaan ayaga furaha isku haya odagaaga iyo adiga idinka furayaasha isku haya qof xukuumaba ma jirto caruurtaada intay yar yihiin baad xukuntaa markay weynaadaan ma xukuntidba xataa intay yar yihiin inaad xukuntid maaha waa inaad wada hadal iyo isqiimeyn iyo xushmadeyn in laga shaqeeyo laakiin haddaan usoo noqdo arrintii ahayd in la is ceebeeyo ama shame culture-ka waxa la yiraahdo ama wax maanta lagu arka adiga bari lagu caayo ogow qofkaad wax ku ceebeynaysid oo ku caayaysid booska uu taagan yahay maanta inaad adiguna istaagi kartid midda kale maxaa ceeb horta isweydiiya horta ceebti laftigeedii ma fahansantihiin waxay tahay ogtihiin dhib qof ku dhacay inuusan ahayn ceeb ma ogtihiin cunugaaga oo maanta wadadii fiicneedoon ku naqaanay ka leexday oo ama balwad yeeshay ama dambi galay oo jeel tagay inaysan ahayn ceeb ma ogtahay in qofka kale uu guursado ama gabadhaadan adigu rabin haday guursadaan ama wiil aadan rabin gabadhaadu guursato inaysan ahayn wax la isku ceebeeyo ma ogtahay qabiilka adiga hadii ilmahaagu guursado ama adigu guursatid qabiil aan dadkiinu ka helin inaysan ahayn ceeb horta ceebta maxay tahay marka fahma ceebta waxa qofka ilaahay ka fogaada qofkii rasuulka maxamed alayhi salaatu wasalaam ka fogaada sunnadiisi qofka ummadda xushmeyn waaya qofka tiisa garan waayo tan dadka ku mashquula taasa ceeb laakiin dib qof ku dhacay iyo imtixaan qof ku dhacay ceeb ma aha xanuun qof uu xanuunsaday ceeb ma aha ilaahay baa keenay caafimaadka iyo xanuunka marka bal aan kala barano maxaa ceeb